قصة عجيبة رهيب المجن من عدب أي وحي خطر كو أباشا الإمام أبو إسحاق المروزي يا قصة عجيبة وري وحكوري أردقس أبو زيد المروزي أخذ عنه أبو بكر القفال الشاشي وعنه الصيدلاني بسند صحيح قصة الشافعية ورياه أبو إسحاق المروزي وحوجي نين هانتيلا أيا بغداد أندرس كو أهيد وبدنا أنا لهين هل ويل بوبد كلها ويل كدوق أو ما إكو نين حافظ الدجنب لقوته ما وإجي ويلكو وضيقنا وضيق ويلا ويلا كاسو كايستا مالك الدنباء أنا والسعودان اسكو صوب حني والدقي أو السعودة مركز يقول يانس ورئيسنا حاجة السعودة وحول السنة كم حارة بين الحجيو ويل كي أنا أنك حيو حد ربطها وحول وجدده وين حجك أنكله وحكم ذا جدك وين حكم ذا إن نمك ريبر مدج أنا له ما كلو كلبحه ويل كلو بندق قائف هدي صوعة ما أنا علي مسوى اللي يدومي أنا أقعد أبو إسحاق المروزي وحارب ويل كانت كله ذا هاي نمن كان قافل ونمن امتحان وضدك ويك على سهران وحد يلي ولا أسطورنت هاي إسلام تالي ويل كان إسكايسو أراد وحج ويل كان أفراك قال ما يقول وحاجرت إن ما كيستاجو هيبني مدجن أنك لبحنو مساسها فرانك قاضي مو حجي ويل كيسيب ولا تجي نينك اللي قلت من سنة إلهي أمرك يقول لها حجاج الصعود بكجرة رفقات بكجرة وقال ما كلا تجي أيانا أنا ودورك أبو حيبول ويلكي يا نينك اللي قلت من سنة يدقيق كلا يرك فربضان جماعة سعودية بلا دحفريسي نين قائف ورهبني مدج الله يعني حال ويل كان نينك دلي سوسر وفيري حوري ويل كان انت فرد من نمر أدين بول كي اللي قلت ما يكجرة وفيري كي اللي قلت ما دحفري حوري نين نمر أدين بول ويل كان يا odaygi dhalay weyninka banaanka u baxay haye qolyo cusub baa la keenay wiilka la dhex fadhiisiyay reerkoo dhan xaafadii wuxuu yiri ma dhalin kuwa kale ma dhalin saddex markuu kiciyay yaa loo odayga loo qoxay war wiilkii meel la saar la yahay ninka qaafka inuu wali taagahayaay baynakee asaga baa hal soo fuulay oo watay soo gaadisaday oday weyn oo adoon ah oo aabihii u lahaan jiray oo aabihii ka dhaxlay baartiga ku wada oo ku hogaaminay ninkii qaayifka ay hidi soocay reebani mudlij ee wiilka dul taagnaa markuu saa ninka u soo baxay irtiga saaraa iyo adoonka weynay waayeelka ku hogaaminay wuxuu Allahu akbar wuxuu ar-raakibu abu hada al-ghulam buri وقائد البعير ابو الراكب بuri بلا بك دعدي حوري الله اكبر بوري ويلك هذا انت اللي وريجنها ابيه وكارتك سو سارن بوري nimanku imtixaan bay baasho ka reebay maskax ilaahay siiyo ma cilmi la barta ma waa hibo wuxuu ri الراكب wuxuu waa abu hada الغلام ninka ritiga soo saaran wiilkan aabihi weeyebo hawsha cadaatay lixuur laakiin gaadidka ninka saaran ee soo socday wiilka dhalana aabihi waa ninka hogaaminaya adoonka weyn ee ritiga wada ayaa ninka ritiga saaran dhalay buu odayga xaajiga ahaa wuxuu intaan suuxay baan dhacay fawaqactu maghshiyan alayhi bala ba ka dhacday sooma muxuu raadinay wiil buu rabay inuu saxadee asagii baa la saxo lagu foofay odayga markuu miirsaday adagu biyo lagu shubo miirsado kacay xajkiisa dhameystay buu noqday Baghdad buu ku noqday mugu Baghdad ku noqday buu hooyadii dhunta ku dhuxooyay hadda run ii sheegin waa la kala baxaya nin qaayif hooyada sooca ayaa cadeeyay wiilkan aan dhalay Arab way samirtay wiilkan aan dhalay laakiin anigu wuxuu yiri odayga adoonka ay hebelay weynaan waan dhaxlay aabay ka dhaxlay baa ku dhalay warka meel saar buu doqdi waxay tii waxba ay diin run baan ku sheegaya aabaha oday waayeela oo qad balaqa meel kibar itiyan buu waabaan isku dhacnay markaan isku dhacnay buu saddex dalaqad bay ugu furay markuu ii furay ayuu ka qoomay hadana furitaanki inuu isoo cishado damcay maxal buu samaystay odaygan weyn ee adoonka
ayuu igu maxlalay habeenaan la bariyay kadib waxaan u maano wuxuu igu maqan yahay yuduqa aabbaha dib ii soo ceshaday oo mar labaad ii guursaday saasaad ku dhalatay saasaad ku idan muxuu noqday waa wiil maxlal ah maxal ku dhashay duqan wiilkiisana nasab buu noqday asaga dhalay si toos ah hawsha waxa kala saaray hal oday reer ibn mudlaji ah waxaad marka fahmi kartaa nimankan qoyskan ma aha sayidina umar qaa'if buu ahaa aad hawsha ugu dheeray aan iskaga tagnee qisada khatar ah fa inta daacaya marka DNA bay barataaye waxa weeye hidasooci reer ibn mudlaji DNA waxa ka khatarsan yahay DNA wax la fiiriyo nafta kaaga baxo indhaha ku cadaadana ma la faaro ku kala lagu celiyo weeye nin halkaa soo socdo ma dhici kartaa wiilkan ninkaas dhalay soo socda ka hogaamin hayana waa aabihi awoodtaas ma waxaad xamili kartaa ma